kulliyadda kugu habboon sidee loo doortaa? نيو حسابته ku fiican tahay engineer kabreed niyo ana xakuumad talna maadaama kabaca tiknoolajiyada maalin isbedelayso inaan program noqotido IT abar iyo maadaama ka soo jeeday dhul beeraley ah akhriya la beeraha baro kadib 12 sano waxbarasho ah arday badan ayaa wajahaysa xaaladan iyagoo ku jahwareersan kulliyadii ay baran lahaayeen laakiin aniga sidaada oo kale ayaan ahaa waxaan ka soo safray magaalada Beledweyne aniga aan aqoon jaamacadda iyo kulliyadii aan baran lahaa kadib sanado badan waxay ii cadaatay hal arin in doorashada kulliyadda aysan ahayn mid kaliya jaangoynaysa rabitaankaaga bal sidoo kale saameyn weyn ku yeelan doonta fursadaha ka jira suuqa shaqada mustaqbalkaaga iyo awoodda dhaqaale ee qoyskaaga marka hore weydii naftaada maxaan jecelahay maxaan xiiseeyaa marka xigta eeg suuqa shaqada kulliyadda aad baranayso ma tahay mid la jaan qaadaysa suuqa shaqada ma dabooli kartaa baahiyaha ka jira suuqa shaqada si degan ugu fikir tani waxay saameyn weyn ku yeelan doontaa 5 sano kadib marka aad dhamaysid jaamacadda haddaba halkan waxaa ku cad in doorashada kulliyadda ay tahay safar isku dhafaya waxaad jeceshahay suuqa shaqada iyo mustaqbalka haddaba arday ma ku caddahay kulliyadda aad dooran lahayd haddii aad ka mid tahay ardayda dhamaysay jaamacad mise dhiganaysa taladaada ugu reeb qaybta faalada